السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله ليال مانتي ومالين وين ومالين عيد الأضحى ملايين مسلمين أنا أكوكل تكنايان عالم كدافيسة مشان أما قاعدة وين أو جدان مسلمين أورانا يسوقي مادين ومينيابوليس كونفنشن سنتر وعيد والبلو أو صلاة عيدة وماشي وين وحفلتها وين كدعان سيدو كلنا مسلمين وحكم مقدمات فرحad aad u weyn baa muslimiinta ka muuqato waxaad u jeedaa inay ayagoo dhan iswada mucaanaqaynayaan inay iswada salaamayaan la iswada cafinayo aadna ay u wada faraxsan yihiin dumar caruur iyo ragba kulligood aad ay wada faraxsan yihiin waadna ka dareemi kartaa والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
kusoo dhawow waa maalin weyn waa maalin ciida kusoo dhawow mikrofoonka Somali Channel yaa salaami lahayd tahniyad u dir lahayd maanta magacayga waa Danjir Cabdullaahi Cabdicasiis oo ku nool Minneapolis waxaan taanid halkaan uga diray ciida adxa dhammaan ummadaha muslimiinta meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan ilaahay uga baryayaa sanadkan sanadkiisa inuu cimri dheer iyo barwaaqo ku gaarsiiyo dhibka ilaahay ka qaadana waddanka Soomaaliya ummadda Soomaaliyeedna qulubtooda inuu ilaahay isku soo aadiyo waxaan kaloo halkaan ka salaamayaa bahda Somali Channel waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair sidoo kale adigana kullu caam wa antum bikhair maanta sida muuqataan muslimiinta aad ay u wada faraxsan yihiin waxa ay u dirayaan tahniyada iyo salaamo haddana waxaan u dhiibayaa mikrofoonka wiil yar oo aad u faraxsan oo iidayo magacaaga iyo yaa salaamina magacayga waxaa Nadiir Ismaa Faarax waxa salaamaya walaalkay magacayga waxaa Nadiir Ismaa Faarax waxa salaamaya walaalahay iyo walaalka intii keenay maanta waa ciid marka ma aad ba u faraxsantaa malaynay oo aad u faraxsanahay aad ba ma hadsantahay Nadiir iidan iideeda insha Allah nagu kulmiyo si khayr leh sidoo kale dad yaryar dad waaweyn dad kala duwan baa goobta isugu yimaada sida u jeedaanba haddana waxaan u dhiibayaa magacaaga iyo dadka salaami lahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعبد الله محمد حسين وعن سلامة يا عرورتا إذا لمان يا شوذا يا عرورتا هو دمانتو كله المقعد ميابروس يا وحي كم مقال دلك أفريقيا دمانتو عرورتا لما سلامة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدة الصومالية دمانتو إنه علينا عيد ونكسر عيد ونكسر بس إذا كنا كلنا مقعاga iyo cidda salaami lahayd بسم الله الرحمن الرحيم magacayga maxamed yuusuf iida la yiraahdaa waxaan ugu horeyn salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ciid wanaagsan baan leeyahay khaasatan ummadda Mareykanka oo Minneapolis waxa kale oo salaamayaa oo aad iyo aad u salaamayaa Somali Channel dhalinyarada ka shaqeysa oo inta muxuu ahay la dhaxurdaysa mikrofoonada muxuu ahay ciida marka ciid wanaagsan baan leeyahay ummadda islaamka meel kasta oo ay joogto ciid wanaagsan baan leeyahay iyo ummadda Soomaaliyeed iyo khaasatan muxuu ahaay Soomaalida Mareykanka ciid wanaagsan baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale waxaan goobta kula kulmay wiil yar oo aad u faraxsan waxaan ugu horeyntiina weydiiyay magaciisa Suhayb yaa salaamaysaa inta ka salaamaysaa awoodidii ayeeyadii awowaha halkee joogaa Minnesota iyo Garowe Boosaaso iyo Garowe ayeeyada halkee joogtaa ayadana Minnesota iyo Garowe hatta sidoo kale Suhayb yare aad baan ku salaameynaa waxa muuqato inaan dhex taagnahay ciyaartoydii Soomaalida ee qaranka waa ay jeedaan Cabdisaaq Yuusuf Ciise ay dhinaciga kale iyo dhinaca bidixda ku soo dhow Somali Channel السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان عيد موناكسن وايد سلامي مسلمين الصوماليات كل جينا وحن لنا هاي حرف فرحت يقعدين كسوارة sidoo kale waxaan gudbinayaa magacayga maxamed cusmaan maxamed reer leedaha waxa halkan taagan ciyaartoyda la jeedriga Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak ciideeda kale waxaad ku barbaarteen barwaaqo bashbash iyo nabad ilaahay waddankeena nabad ha nooga dhigo sanadka dambe aan ku ciidno waddankeena insha Allah ciid mubaarak kulli muslim maadaama ka socotaan kubadda qaranka ama sportiska qaranka Soomaaliya aad u soo dheeli jirteen maxaa kula dardaarmi lahaydeen dhalinyarada yaryar ee hadda goolkaas hiigsanayo ee idin daawanaya maadaama ciid ay tahay munaasabad wanaagsan aad joogtaan ما شاء الله وحان كرجينا إن شاء الله وهلكن أبابل على قسم يا مركز تبع وأنا كل رجالنا أنا متقنا يرى ودك قرن كأي مثلاً وكندا مريكان كأردن ميلا بدنا كأورنا مركز إن شاء الله هاي صوت دياريان هاي صونا شيئان مقعن تودا إن شاء الله وأنا نسود ويننا ميلا كسوع يرى قرن كلو قبنا إن شاء الله sidoo kale waxaan ku soo dhaweynayaa siyaad soo dhow assalaamu calaykum ciid wanaagsan baan leeyahay dhalinyarada oo dhan Soomaalida meel walba ay ku nool yihiin waa farxad aad u weyn maanta inaan la iidno ciyaartooy caan ah oo xagga af Ingiriiskana looga aqaan celebrity wadanka inta fursad aad u muhiim bay tahay waan salaamayaa cid walba baahda Soomaalida oo dhan oo Minneapolis iyo Minnesota khayr baan soo wanaagsan assalaamu calaykum bismillaah magacaygu waxa weeye maxamed cali xaashi
ciid mubaarak baan leeyahay muslimiinta meel kastoo ay joogaan halkan waxaan tahniyad uga dirayaa hambalyo waalidiintay oo ku sugan magaalada Gaalkacyo Soomaaliya waxaan leeyahay ciid mubaarak muslimiinta oo dhan ciideeda waxaan u rajaynayaa khayr iyo bashbash inaan ku gaarnay caafimaad iyo Soomaaliya nabad noqota oo dhan walba oo dhinac walba nabad ka noqota ayaa Ilaahay ka baryana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciid wanaagsan magacaaga iyo dadka tahniyad u diray. Ciid mubaarak waan salaamayaa dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo khaasatan dadka qoliyahan Somali Channel iyo eheliyadeyda oo dhan waxaan ka salaami doonaa aan salaan gaar ah u jeedinayaa waalidkay hooyaday Ardo Maxamed Cawl iyo walaalahay meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaad ku waartaan ciideeda caafimaad iyo barwaaqo iyo carruurteyda meel ay joogaanba dhammaan wada salaamaya Soomaali oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi ciid wanaagsan si qurux badan oo u labisan tahay oo dhaqanka iyo hidaha ma sha Allah ciid wanaagsan Somali Channel ku soo dhawow yaa salaamaysaa magacaaga ku bilow marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Muxuudiin Cabdilaahi Warsame dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan leeyahay familygayga waxaan marka hore aan ciid wanaagsan leeyahay xaaskayga Samsam Nuur Maxamuud waxaan leeyahay walaalahay dhammaan ciid wanaagsan oo ku kala nool Minneapolis magaalada Boorame Ethiopia dhammaan waxaan leeyahay asxaabteeda oo dhan meel kasta ay joogaan si gaar ah aan ciid wanaagsan u leeyahay asxaabteedii aan Boorame inta badan wada joognay maalmihii ugu dambeeyay aan wada joognay Abubakar Xasan Caafi welcome to Somali Channel Eid Mubarak Eid Mubarak Jazakallahu khairan Barakallahu feek may Allah subhanahu wa ta'ala reward all of the families all of their sacrifice on the day of Eid al-Adha Alhamdulillah we are all here today alive and healthy now we get to go have the fun inshallah sacrifice the animals take our kids to have fun inshallah make sure we spend these next few days doing dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala and glorifying him for the things that we have here inshallah since you lived with the Somali people in Minneapolis what would you say to them mashallah keep on working and striving for the path of Allah subhanahu wa ta'ala and also don't give up hope okay our elders and our youth we need to come together and we need to work on our future here especially here in the state of Minnesota and on the community as a large inshallah we have a lot of good things here that are going to be happening we're going to start getting back together the youth and the elders bringing them together at the same point and start building our community from the ground up inshallah mashallah thank you Eid Mubarak once again and thank you barakallahu feek jazakallahu khairan barakallahu feek alhamdulillah wanaagsan oo iida ku soo dhawow mikrofoonka Somali Channel magacaaga ku bilow iyo cidii aad salaami lahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo dadka muslimka meel walba ay joogaan salaanka bacdi ciid wanaagsan waxa farxad iyo amaanta aan la iidayo reer Minneapolis Minnesota anigoo ah from Texas marka aad iyo aad aan u hambalyeynaya ciida farxadda leh aan maanta la iiday ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan u hambalyeynaya ciid wanaagsan sida sharafta leh reer Minneapolis isku abaabuleen ciida oo si sharaf leh u dhacday marka dad bahda oo xiriirintana aad baan ugu mahadinayaa marka jazakallahu khair assalaamu calaykum waraxmatullaahi maadaama aad Texas ka imaatay oo aad ku iidi jirtay halkaas maxay uga duwan tahay iidihii Texas aad ku iidi jirtay iida maanta Minneapolis aad ku iido Soomaalidan badan la iiday waxay ugu duwan tahay Minneapolis waa hooyga Soomaaliyeed oo all America oo ummadda dhan iskugu timid ilaa 1 milyan ama half milyan Texasna waxa way kala qaybsan tahay sababtoo ah Dallas oo kala camal 3,000 Houston 3,000 San Antonio 3,000 Amarillo 2,000 marka saas awgeed ay different u kala yihiin Minneapolis laakiin waa hooyga Soomaaliya oo dhan shantaraalkeeda Somali Channel ya salaami lahayd magacaygu waa Maxamuud waxaan ka imaadaa Phoenix Arizona halkan waxaan u imaaday ciida waxaan salaami lahaa Soomaalida oo dhan ciid mubaarak kulligeen waxaad ka imaatay state kale kuma noolid halkan ciid aad u imaatay muxuu uga duwan yahay state-ka aad ka imaatay state-kan ciid ahaan wallahi wuxuu uga duwan yahay meeshaas islaam baa jooga laakiin Soomaalinimo ma dareemaysid halkan markaa imaato ma sha Allah oo adiga Soomaali jooga camal aad ayaan u jeclaaday ma sha Allah alxamdulillah
ومahadsan tahay waxaan rajaynayaa noo soo wareegtaba magacaaga iyo cidda aad ka salaamayso maanta oo maalin weyn ah ciid al-adha ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفيصل أحمد عمر فيصل كرام كم عدير أنا وكفاية السنة يا سومالي channel يعني فرصة أنا السنة كسلان يعني ومدير السومالي وهرين وحكي السلام يا سومالي ذا ملو بيكو جوكت دون ما تكون عيد سعيد ونكسن إن شاء الله بحرجينا سنة كان سنة كيس كل إن شاء الله الناس كبدش على سومالي كسر يعني بدن هدو إلهي رهدو waxaan ilaahay Soomaalida laga qosin raxmad ilaahay la taqnatu min raxmatillah insha Allah xaaladda Soomaaliya maan wax way iska bedeli doontaa waxa laga yaabaa markii la dhaho Soomaaliya maanta nabad ha noqoto ama si ha noqoto sanad walba ciid walba xaj walba loogu duceeyo qof walba inuu isdhaho Soomaaliya maan walba waa loo duceeyo waxna isbedelayaan laakiin raxmad ilaahay mar walba laga maqsto maan walba insha Allah wax way iska bedeli doontaa Soomaalida meel walba ay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan insha Allah qaasatan reer Minneapolis insha Allah salaam walaal ciid wanaagsan ciid wanaagsan halka magacaygu waa Ibrahim Abdulla Jimcaale oo ku magac dheer Ibrahim Dheere halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah gaar ahaan Soomaalida meel walba ay joogaan gaar ahaan sidoo kale waxaan salaamayaa hooyaday Saacdiyo Cadow Asable oo ku nool magaalada Muqdisho iyo dhammaan walaalihii meel walba ay ku nool yihiin sidoo kale waxaan leeyahay ciidan iyo ciideeda kullu caam wa antum bikhair ku gaara farxad bash barwaaqo iyo Soomaaliya oo nabad assalaamu calaykum mahadsanid ciid wanaagsan Ibrahim ciid wanaagsan magacaygu waxa la dhahaa Liibaan Aadam waxaan ku dhihi lahaa dadweynaha Soomaaliyeed oo dunyada dhan degan ciid wanaagsan waa ciid al-adha waa ciidii ugu weyneed ciidii hore ma weyneyn intana ugu weyn han waa la xajiyaa Soomaalida xajka joogta ciid mubaarak Soomaalida Soomaaliya joogta ciid mubaarak Soomaalida dunyada dhan joogta ciid mubaarak baasha Allah family-ga u taga arigiina wada qashta maanta waxa way maalin farxad ah ciyaara okay thank you very much salaam ilaahay ya salaam ani waxaan salaami lahaa hooyaday waxaan salaami lahaa aabahay waxaan salaami lahaa culimadoo dhan oo joogta Soomaaliya dhan iyo culimada joogta Minneapolis iyo waxaan salaami lahaa dadka Minneapolis waa kaas magacayga waxa la dhahaa Good Ali waxaan meeshan hambalyo uga dirayaa my family and friends-kayga adduun ku nool my maamada hooyada Ruqayya Abshir oo degan magaalada Minneapolis all my family muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo bartaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda East African-ka inay waxyaaran ku darsanaya inay soo baxaan maalinka November 5 election weyn baan ugu soo aadan magaalada Minneapolis please soo baxa oo vote gareeya oo waliba vote gareeya dadka Soomaalida ah oo musharaxiinta whatever they are please soo baxa oo vote gareeya November 5 thank you especially Hashim Yoni ciid wanaagsan ya salaam ilaahay anta ka salaam ilaahay Habiyer ya kor hada Habiyer ya abuwa ya hooyo ya driskeeya ya abuga ya abo ya yayo magaca Ayub Faarax waa mahadsantahay ciid wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله عيد ونكسن مقعي وعبد الرحمن عيد ونكسن دمان ومد الصوماليين ميل والبا اي جوغان waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabteeda intii waji garanaysay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka meel walba ay joogaan waxaan kaloo halkan ka salaamayaa aan ehelkayga ugu horeyso walaashay Faadumo Nairobi ku nool Faadumo Maxamed Geedi iyo caruurteeda iyo dhammaan walaalahay oo meel walba adduunka kala jooga waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha Somali Channel fursadan qaaliga ay nasiyaan aad bay ugu maansan yihiin waxaan leeyahay insha Allah taala ciid wanaagsan dhamaantiin ciid wanaagsan aad baa u maasantiin assalaamu calaykum waa mahadsantahay sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan taqabbal Allahu minna wal a'maal as-saaliha kullu caam wa antum bi khayr dhammaan waxaan salaamayaa muslimiinta waxa kale oo sheegaya muslimiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga baqo dhammaan maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala loo toobad keeno waxaan salaamayaa gabadhayda Raxmo waxaan ku raadaya Zahra Maymuna iyo dhammaan eheladii oo dhan baan salaamayaa dadka muslimiintana insha Allah ta'ala amal khair qaba ku dadaalaan si ay maartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala toobadooda u aqbalo soo dhawow microphone Somali Channel yaa inta ka salaamaysaa magacaaga marka hore ku bilow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك مقعي هند علي مع السلامة يا هويدي عاشا حسن لي بهية أحمد علي my husband عبد الله علي عمر and then كمان family all my brothers and sisters waxaan uga bilaabay weyd husbandka hooy aaban ka bilaabay mahadsanta soo dhawow microphone Somali Channel ya salaam ilayd aniga horta waxaan salaami lahaa dhammaan Soomaalida dhan oo adduunka ku nool ciid mubaarak hooyaday walaalahay nabtiyaashay
adeeraday kulli horta waa salaamantiin ciid mubaarak especially walaalkay Yunis iyo Faisal oo especially Yurub ku nool Faisal Sharif iyo Yunis Sharif waxaan dhihi lahaa ciid mubaarak also dhammaan Soomaalida ku nool Minneapolis oo dhan anigu magacaygu waa Saciid Sharif Maye waxaan ahay musharax u ordaya Minneapolis Park Board Commissioner waxaan dhihi lahaa Soomaalida ku nool reer Minneapolis anigu waxaan ka ordayaa Minneapolis oo dhan mostly marka waxaan dhihi lahaa soo baxa ii vote gareeya November 5th Minneapolis Park Board Commissioner District 3 thank you jaaliyadaha badan ee ku soo tukaday meeshan goobtan maadaama la soo wada imaado waa ay kala duwan yihiin waana ayna fara badan yihiin waxa farxad inoo ah in aan walaalo Djibouti ka soo jeedo tahniyadana ay ka dirayaan halkan ayna nala joogaan waxaan ku soo dhaweyn lahaa qofkii koobaad magacaaga iyo dadka salaaminay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن لها عيد ونكسن عيد مبارك وحن هالكن سيجار وسلام يا فامل كيجا dadweynaha dadka reer Djibouti oo dhan meel kasta ay joogaan adduunka dacaladiisa waxaan si gaar ah u salaamayaa dawladda jamhuuriyadda Djibouti oo horeeyay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxaan kale si gaar ah u salaamayaa mucaaradka iyo madaxdooda waxaan u rajeynayaa inay si khayr ah arrimuhu ay ku dhameystaan marka waxaan leeyahay maxaan qoraa walaalaha kale reer Djibouti aan ku soo wareejinayaa magacaygu waa Zakariye Maax Isaaq waxaan xaggan ka salaamayaa dhammaan jaaliyada reer Djibouti ay ugu horeyso xaaskayga Hodan Xuseen Cabdi oo hadda ku sugan Hargeysa iyo reerkooda iyo aabahoodii walaalahoodii dhammaan familkeeda waxaan leeyahay jaaliyada reer Djibouti kullu aamin wa antum bil khayr insha Allah ciideeda ilaahay khayr iyo nabad ha nagu gaarsiiyo waa mahadsantahay soo dhaw waxaan weli dhexda uga jirnaa walaalihii reer Djibouti oo tahniyada uga dirayay halkan Minneapolis Convention Center reer Djibouti iyo walaalahooda iyo qaraabadooda oo ku sugan Djibouti iyo dunida dacaladeeda ku soo dhaw walaal mikrofoonka Somali Channel yaa salaami lahayd magacaaga igu bilow markaa bismillah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacaygu waa Uthman Salabaan Umar reer Djibouti way yaqaanaan horta kulli caam wa antum bil khayr ummadda islaamka oo dhan baan salaamaya salaanka bacdi insha Allah waxaan khaasatan salaamaya hooyaday iyo aabahay iyo dhammaan dadkii dariskaaga ahaa Djibouti ku noolaa xaafadda Kartesaad waa idin salaamaya insha Allah taala ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr insha Allah sanadkiisa dambe ilaahay nabadgeliyo iyo raaxo nagu gaarsiiyo insha Allah sidoo kale anagana waa ku salaameynaa waxaan magacayga leeyahay Mustafa Isaaq waxaan salaamayaa dhammaan jaaliyada reer Somaliland meel kasta ay degan yihiin khaasatan hooyaday aabahay walaaladay aabahay Xasan Macalin hooyaday Faadma Aadan iyo dhammaan jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay ciideeda caafimaad iyo nabadqab ku ciid wanaagsan iyo caalamka islaamka oo dhan meel kasta ay joogaan iyo dadkan aan la noolahay reer Minneapolis waxaan leeyahay ciid mubaarak aan ciid wanaagsan meeshan waxa ila taagan reer Minneapolis dad si fiican looga yaqaano beena iyo sidoo kale Sadiq Warfa ku soo dhaw beena yaa salaami lahayd meesha ka salaami lahayd maanta maalin farxad badan ay ka muuqato wajigaaga insha Allah assalaamu alaykum waraxmatullaahi anigoo ah Maxamuud Cabdiraxmaan beena waxaan aad u jeclaan lahaa inaan salaamo muslimiinta dunida inaan la qaybsado farxadan weyn ee ciida ee qof kasta uu ku faraxsan yahay salaadii ciid si sharaf leh oo qiimo badan aan soo gudanay alxamdulillah marka labaad waxaan jeclaan lahaa bahda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ee muslimiinta ah ee maanta ku faraxsan inay salaadooda ciidii ay gudeen maalin farxad weyn ay tahay dadka ay wada wadaagi karaan sidoo kale waxaan si gaar ah inaan u salaamo aan rabaa hooyaday iyo aabahay Aba Cabdiraxmaan iyo hooyo Xaliimo oo ayagana Muqdisho ku nool xaaskeyda Canab wiilkeyda Hanad iyo Cabdiraxmaan walaalahay Malaysia ku nool dhammaan iyo inta taqaana saaxiibaday dhammaan reer Minneapolis ama USA dhammaan ama inta dacalada dunida ku nool iyo Soomaaliya oo dhan ee wadankeena joogta aad baan u soo dhaweynaa nabad iyo bashbash iyo baraare inaan ku wadan gaarno sanadka soo socdo ciideeda kale dhammaantiin aad u maasantiin ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda Somali Channel saaxiibkeedu Yulidayn Siyaad Saciid Saalax dhammaan inta barnaamijkan ka qayb qaadanaysa ee rabta inay gaarsiiso codka Soomaalida kale inta adduunka meel aan ku wada xiriiri karnay TV ka shaqeynay aad baa maasantiin salaamullaahi calaykum soo dhawow Somali Channel mar kale Somali Sadiq Warfa waxa si wanaagsan looga yaqaanaa Minneapolis iyo agaaraheeda waxaad kale ku xasuusan kartaan fagaaraha oo noo daadihin jiray Sadiq Warfa ku soo dhawow ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ummadda adduunka waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr waa maalin farxad leh marka waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed anagoo ugu hambalyeynaya munaasabadan Ciidul Adha
waxaan ummadda Soomaaliyeed oo kale meel walba joogta aan leeyahay hal adkeeyo nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed marka anigu dhammaan baan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waa ku salaamaynaa ugu dambeyntii Soomaalida maxaad kula dardaarmi lahayd maanta maalin weyn maadaama ay tahay maalin ciidan ay tahay waa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan kula dardaarmi lahaa iftiinka soo baxay ee hadda Soomaaliya ka jira in la adkaysto ummadaha adduunka hore ayay u socdaan ummadda Soomaaliyeed muddo dheer ayay dhibaato ku jirtay anigu mar walba dhahaa waxyaabo badan baan isku qabnaa dhibaato weyn baa ummadda kala gaartay laakiin xilligii waxaa la gaaray la biskoona boogtii la biskoyn lahaa in laga wada shaqeeyo isku soo dhawaanshaha ummadda Soomaaliyeed meel walba aan joogno bishaan waa bil barakaysan maalmaha 10 maalmood maanta ugu dambeeya oo tobanaadka ciidda waa maalin aad u barakaysan fadligeeda waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed ku midowdo oo aan ku midowno ummadda Soomaaliyeed midnimo weeyo macna message-kayga midnimo waan idin salaamayaa baar Somali channel Soomaali weyn meel walba joogtiin waxaan leeyahay guul wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantahay sidee qurfaan tan ku soo dhawo mikrofoonka Somali channel magacaaga ku bilow sayaa salaam ilahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan halkan waxaa ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay iyo muslimiinta dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak yaa kale oo khaas ahaan u salaami lahayd maadaama wiil dhalinyaro aad tahay yaa kugu weyn khaas ahaan waxaa khaas ahaan u salaami lahaa dadweynaha Soomaaliyeed oo degan Soomaaliya wax kale goon oo salaam ma jiro way intaas oo salaamaya ayo maadsanta ku soo dhawo mikrofoonka Somali channel waa maalin weyn waa maalin ciid wanaagsan yaa salaami lahayd magacaaga iyo cidda salaami waxaan salaami lahaa magacayga waa Cusmaan Axmed Cusmaan Cirro waxaan salaami lahaa maxaa la dhahaa bulshada muslimiinta ah iyo inta Soomaalida oo degan maxaa la dhahaa adduunka dacaladiisa waliba qaasatan gobolka Minnesota oo aan ku noolnahay marka waxaan rabnaa inaan dhaho ciid wanaagsan families friends maxaa la dhahaa inaan salaamo walaalahay iyo hooyaday oo Soomaaliya joogta Minnesota joogin iyo dhammaan inta faraxsan maanta oo ciidan ku faraxsan dhammaan ciid wanaagsan dadka qaaliga ah waa maasantiin iminka sida muuqato nagu soo biiray Sheekh Maxamed Cabdi Shucayb waa imaamka iyo khatiibka Masjid Rawda sidoo kalena Masjid Abu Bakar ku soo dhawow Sheekh Shucayb maalin weyn oo maalin ciid wanaagsan yaa salaami lahayd inta ka salaami lahayd maadaama maalin weyn oo maalin ciid ay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin kullu caam wa antum bikhayr ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waa salaameena iyo ummadda muslimiinta ah gaar ahaan waxaan salaamayaa dadkii reer Qardhood ahaa iyo magaalada Qardhood dhan gooni ahaan insha Allah waxaan salaamayaa hooyaday Hodan Cabdixaliin iyo habarriyaashay iyo walaalo iyo reerihii oo dhan meel walba wada joogaan waxaan kaloo salaamayaa aabahay Cabdi Shucayb oo gaalkacyo jooga guud ahaan waxaan kaloo salaameynaa insha Allah muslimiinta meel walba joogaan culimadii salaan gooni oo khaasan waxaan u dirayaa Sheekh Shariif sheekhaygii insha Allah ta'ala شريف الطويل كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير شيخ شعيب ومهتنتا بارك الله فيك بارك الله فيك ايات سلامي لهيد واحد سلام يا مسلمين كل عام وأنتم بخير ملك سعد جوكتان مسلمين خاصة الصومالية ضد مسلمين إن شاء الله وحنا حج مبروك مسلمين حجينا مسلمين عيدين وحنا عيد مبارك جزاكم الله خير كسoo qabateen ilaahayna ka abaalmariyo sidoo kale macallin Roble oo mahadsan tahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhammaantiin sidoo kale annagu idin salaamaya waxaanu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkii aan ugu talagalnay ciidda aan idinkaga soo tabeynay Minneapolis Convention Center oo ah meel Soomaalida iyo muslimiinta oo dhan ay isugu wada imaadaan Soomaalidan ay ugu badan tahay sanadkan sidoo kale waa arkayseen dad isteediyo kale nooga yimid inay nala ciidaan farxadana nala qaataan daraadeed noogu yimaaday barnaamijkaas maanta waa maalin ugu weyn waxaan u rajaynaynaa Soomaalida iyo kulli dhammaan muslimiinta oo dhan inay tahay maalin weyn khayr badan waxaan si khaas ah u salaami lahayn aniga oo ah Maxamuud Dulyadayn Siyaad Saciid Saalax iyo Ismaaciil Awil Nuur Shire waxaanu salaamaynaa shaqaalaha kale ee bahda Somali Channel baanu salaan inta uga direynaa dhammaantiin daawashada wacan waa ku mahadsantihiin Maxamuud Dulyadayn Somali Channel Minneapolis Minnesota